sida aan ognahay saaji ahaan inta muddo aan hadda Soomaaliya aan ka howlgalaynay ama aan ka shaqaynaynay abuur ama miro oo GMO oo wadanka ku baahay ama oo ku fiday oo la beerto ay beerleyda beertaan aan ognahay ma jiraan. beerleyda badankood waxay beertaan waxa abuur ayaga ay kaydsadaan ayay beertaan, kuwaasna waxay u badan yihiin wixii localka ay beeran jireen. haddana weydiistaan abuur dhinaca abuurka markaan ka baxno GMO wadanka ma la isticmaalaa oo ma soo galaa? jawaabtu waxa waaye haa, wuxuuna u soo galaa sida oo food aid markii la keenayo kale oo wadanka uu soo gelayo markii abaaraha ay jiraan ama macluul jirto oo la keenayo waxay u soo galaan GMO. annaga SATG ahaan xataa waxaan sameynay galleyda oo suuqa laga kala iibsado mucaawanada oo laga keeno ama wixii suuqa yaalaba oo meelo badan ayaan ku wareegnay Soomaaliya gudaheedii, meelo badan ayaan aadnay, samples badan ayaan qaadnay oo aan analysis ku sameynay, GMO analysis aan ku sameynay, aan aragno inay GMO inay jiraan in kale. waxaan soo ogaanay inay jiraan GMO inay soo jiraan, waxay ku imaadaan in a form of food aid ayay ku imaadaan. marka intaas ayaan ognahay, laakiin wax la beerto ama SATG ay keentay oo GMO ah ama ay farsamaysay oo beerleyda ay u qaybeyso ma jiraan.